تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامجكي qoyska iyo arrimaha haweenka oo toddobaad walba aad ka daawataan Puntland TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Garowe barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku marti qaadnay 3 hablood oo isugu jira qurba joog iyo dal joogba oo safaro kala duwan ku kala bixiyay guud ahaan deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Gardafu iyo gobolka Nugaal gabdhahaasi waa Sacdiyo Cabdirasaaq Axmed iyo sidoo kale Hodan Jamaal Soomane Leila Cali Cabdullaahi Leila Xiis dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka qoyska iyo arrimaha haweenka ee Puntland TV waa mahadsantahay ku soo dhawaanahay marka ugu horeysa anigoo idin soo dhaweynay saddexdiinba waxaan jeclahay bal inaad faahfaahin ka bixisaan qaababkii kala duwanaa iyo safaradiinii aad ku tagteen deegaano kamida gobolka Nugaal iyo sidoo kale gobolka fog ee Gardafu waxaan ku hormarayaa sida ay faahfaahintaasi noo siiso Leila Cali Cabdullaahi Leila Xiis bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Leila Xiis waxaan horta bishii hadda tagtay iyo tii ka horeysaba iyo bishaanba waxaa ku jirnay cilmi baaris oo aan u wadnay hay'adda Relief oo ka shaqeysa gabdhaha waxbarashadooda iyo waxbarashada guudba waxaan markaa consultant ugu shaqeynaynay hay'adda la dhaho 4CA oo ma garanaysaa ka caawinaysa markaa iyo inay u sameyso cilmi baarista hay'adda Relief waxaan ka shaqeynaynay oo baaraynay caqabadaha gabdhaha waxbarashada ay kala kulmaan oo keenaysa inay iskuulada aysan tagin iyo waxyaalaha keenay inay gabdhaha uga yar yihiin iskuulka wiilasha ay dhigta iskuulka iyo aqoontooda inta ay la eg tahay iyo waalidiinta oo aan ka wareysanaynay gabdhaha hawlaha ay kala kulmaan guriga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan in cashiradooda iyo ma garanay haddii koronto la'aan jirto iyo haddii taageero dheeraad aysan jirin marka waxaan ka shaqeynaynay remote area-da oo marka aan ka bilaabeynay gobolka Nugaal oo teamkan ay ka shaqeynaynay waxaan ka bilawnay Eyl baan tagnay oo aan ka bilawnay marka hore Digilna tagnay Digilna waxyaalo cajiib ayadana ku aragnay waan ka gudubnay waxaan tagnay daawadan isna dhowr maalmood aan joognay waan kasii gudubnay waxaan tagnay Baday oo intaas bay ka tirsan yihiin degmada Eyl ee gobolka Nugaal marka waan ka wareegnay waxaan u gudubnay Godob Jiraan baa iyadana dhowr maalmood aan ka shaqeynay waan ka gudubnay Bargal baan habeen joognay waan kasii gudubnay waxaan u gudubnay dhulkii fogaa oo cajiibka ahaa Gardafu marka Caluule iyo Xaabaan tagnay qorshahan wuxuu ku jiray inaan tagno tuulooyin kale laakiin waqtiga noo suurtagelin marka waxay noqotay in safarkeena aan Xaaba ku ekeysiino marka waxaan ahayn 4 qof baan ahayn iyo darawalkeena hal wiil iyo 3 gabdhood oo marka cilmi baaristaas marka hay'adda u waday safarkan wuxuu noo bilowday bishii February 3 buu bilaamay wuxuuna ku ekaa 7 Maarso baan ka soo galnay safarkeeni oo Garowe aan ku soo noqonay ilaahay nagu soo nabad celiye ma santahay Leila Xiis dabcan safar dheer baad gasheen oo waqtiyo kala duwan leh waxa idinku jirtay safarkana idinku helinaysay maadaama adigu waqti dheer ah hadda ilaa 4 sano aad dalka joogtay qurba joog adigoo markii hore ahaa sidoo kale gabadha la yiraahdo Sacdiyana iyaduna dal joogta ay kamid ahayd Hodan Jamaal Soomane oo dhinacayga midig fadhida waa qurba joogta ka timid wadanka Sweden marka ugu horeysan ku soo dhaweynaya Hodan bal xilligii aad ka timid wadanka Sweden oo aad Puntland imaanaysay ujeedkaagu wuxuu ahaa iyo waxa dalka kala kulantay marka aad timid safarkii aad ku tagtay gobolka Gardafu iyo gobolka Nugaal maxaad kala kulantay maxaad wax ku farxad galiya wax aqbal ah iyo dhibaatooyinka gobolka Gardafu ka jira dhinaca wada la'aanta ah bal arimahaas faahfaahin naga sii Bismillahir Rahim Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana Hodan Jamaal baa lahaa Sweden baa ka imaaday 5 bilood baa hadda jooga internship iyo thesis kayga baarway inaan Soomaaliya ku soo dhameeyo shaqadan baa soo baxday soo maxaan aadnay meelahaas dhan oo Leila ka soo sheekaysay baa soo maray waxyaabo badan oo aan ogeyn markaa Sweden joogay baa soo arkay markaa Sweden joog maxaa u maleynay Soomaaliya inay meel jabsan tahay iyo waxbarashada aad ugu hooseyso soo hadda markaa tuuliyaashaas dhan markaa soo arkay maxaa fahmay inay Soomaaliya meel
barwaaqo ka jirto wax fiican wax badan oo fiican ka jirto iyo laakiin maxaa jirto waxyaabo badan oo aqbad ah oo loo baahan yahay in la sii fiicneeyo so marka dadka oo wadamaha kala joogaan oo Australia ingiriiska America iyo Sweden iyo Holland iyo meelahaas dhan maxaa fiican inay wadankooda ku soo laabtaan iyo wax fiican ka soo qabtaan because hadda Soomaaliya horumar bay gaaraysaa so maxaa fiican in hadda wadanka la soo laabto dad badan oo wadamaha kala degan oo Nigeria iyo Ghana iyo meelahaas ka imaadaan summer walba markay iskoolka fasax ka leeyihiin wadamahooda ku soo laabtaan dhibaato badan baa jirto because Soomaaliyaasha oo wadamaha Sweden iyo Europe iyo meelahaas joogaan weligood Soomaali ma ku soo laabtaan wadankooda ma u xiisaan ma ka soo fiiriyaan dhibaatada ka jirta iyo barwaaqada xataa oo ka jirta wadanka so ani maxaa rabi lahaa in dadkaas dhan inay wadankooda ku soo laabtaan iyo si fiican wadankooda u caawiyaan sida horumar u gaarno hodan maadaama aad tiri dhulkii waxyaabo fiican oo aad u badan baa jira adiguna aad gabar da'yar tahay bil dhan iyo weliba bil iyo bar xilli lagu qiyaasi karo aad dhul badan tagtay oo aadan weligaa tegin maxaa dareemaysay markaad halka aadaysay waxaad is lahayd dhulkaas waa dhul burbursan oo dhibaata kaaga imaan karta mise waxaad dabcan waa wax lagaaga sheekeeyay hore aad u maqashay oo dhul caadiya lagugu yiri weeyaan dhulkaasi bal taas noo faahfaahay markaan Sweden joogay newska baa akhrisan jiray journaalka iyo marka ka fiirina maxaa u maleynaya meel oo khatar ah iyo dadka aadi karin iyo qof walba inay ka cabsoonayaan inay banaanka aadaan iyo laakiin hadda marka meelahaas dhan soo arkay markaa soo maray maxaan dareemay ina dhibaato ka jirin iyo baqsi jirin iyo waxyaabo badan oo fiican xeeb qurux badan baa heesanaa iyo maxaa haysanaa guriyaal dhismayaal badan hore oo taariikhi iyo laakiin howl shaqo badan baa loo baahan yahay in laga sameeyo in si fiican loo dhiso jidadka iyo beeraha iyo waxyaabo badan baa jirta oo u baahan in horumariyo sax waa maasanta ku soo laabanaya hodan Sacdiye Cabdirasaaq Axmed baan u gudbayaa iyadu xogayaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland marka ugu horeysa anoo barnaamijka qoyskii arrimaha haweenka ugu soo dhaweynaya adigu marka ugu horeysay aad ka baxday Garowe oo gobolka Gaardafuu tagtid baa marar hore waxaa jirtay aad gobolkaas tagtay assalaamu calaykum waraxmatullaah way jirtay marmar aan ka dego laamiga laakiin ma fogaan jirin marna ma dhicin in oo aan Gaardafuu tago haddana xataa ma dhicin mar in oo aan raf saayid aan maro ma aysan dhicin mana u malaynin wallaahi in ay jirto يعني خاصة بطلان Soomaaliya waa u malayn jiray inuu wadan qurux badan ama meel qurux badan oo loo dalxiistay karo inay jirto laakiin marna ma u malaynayn in ay Puntland ka jirto meel qurux badan oo loo dalxiistay karo oo indhaha u roon oo haddana wax walba laga helayo qudaartii laga helayo kalluunkii laga helayo xoolihii laga helayo yani wax badan oo Soomaaliya la isdhihi karo ma lahan in laga helayo Puntland marna ma u malayn jirin laakiin marka aan Gaardafuu tagay waxaan arkay in la helayo beerihii oo qudaarta nooc walba ay taalo in la helayo yani xoolihii oo daaqaya xataa buuraha korkooda daaqaya xataa waxaa arkaysaa xoolo oo bad la dhahay way soo go'day dhex maraya sida geela oo kale oo ay ka arkaysa geela kuriskiisii ama madaxiisa inta sare kaliya arkaysid oo geelu u gudbaaya dhinaca kale oo uu damcayo inuu kasoo daaqo wax kale waxa oo arkaysaa yani kalluunkii oo saliid laga miirayo weligii ma arkin ama ma maqlin kalluun oo saliid laga miirayo oo haddana intii saliid laga miiro litirka saliidda lacag fiican ay siisanayaan dadku mana arkin weligay waa kalluunkii saliid laga sameeyay waa kalluunka way soo qabanayaan laakiin hilibka ma cunayaan just waxay soo qaadanayaan beerka shiidayaan saliid bay ka miirayaan kalluunka qolofkiisa kalena way tuurayaan waxay dhahaan kalluunkan ma la cuno saas darteed waxa aan arkay oo aan la yaabay yani wadamadaas yani tuulooyinkaas oo xeebaha ah oo kalluumaysatada badan ay joogto haddii oo damacdid in oo kalluun cuntid ama minta meertagta kalluun ma yaala wuxuu ku dhahay kalluunka qasadaha baa yaala oo kalluun kale ma yaalo
yacni waxaa dareemay inay tahay aqoon la-aan inay tahay inay kalluunkii badda yaalay ay la soo baxaan oo ay ku bedelaan kan carabaha ay laga soo sameeyo yacni kalluunkaas ay samaystaan waxaa kaloo soo arkay meel oo xaabo ay leedahay warshad ay leedahay oo kalluunka lagu sameeyo laakiin warshadaas aniga markaa taagnay meesha waxaa ma shaqaynayso laakiin waxay shiidaysa saliidaas ay sameynaysay haddana waxaan kaloo arkay in khayraad badan wadankaas u yaalo laakiin la garan layahay sida khayraadka loola soo bixi lahaa waxaan xataa aaminsanahay gobolkaas keliya yacni tuulooyinka yararka oo aan tagnay keliya in ay anfici karto Puntland oo dhan khayraadka ku jira markii oo beeraha la arko oo xoolaha la arko oo haddana baddi la arko oo haddana yacni la arko wadan buuro dhaadheer la buuri iyo daruuri oo isgelaya la arko yacni wadamo loo dalxiis tago way ku qurux badan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in ay ka maqan tahay dadka meesha degan iyo reer Puntland oo dhanba in ay ka maqan tahay in ay meesha xataa maalgashi badan iyagoo aan samaynayn in ay soo caansaaraan oo yacni wadada oo kale u sameeyaan dhibaatooyinka ugu badan oo la sheegay waxa weeye wadada yacni wadada waa wada raf ah oo haddana riski ah yacni jambiga aad maraysid haddii aad gaariga ka degtid 2 talaabo oo kale ma qaadi kartid haddii aad qaadi badda ku dhacaysaa badda meesha oo kale ay kaga xirmayso baddana yacni dhagaxuun aan u malaynayo in gacanta lagu sameeyey baasaa u taartaala yacni waa khatar xataa gaariga inuu taraaraxo waxaa kale oo dhibaato ah oo jirta hadduu gaariga kaa xumaado hadda anaga gaariga naga xumaaday habeenkii oo dhan meesha baa joognay yacni wuxuu naga xumaaday gaariga 5 galabnimo meelahaas waxaa ka tagnay oo yacni gaari helnay 4 saac ilaa 5 saac oo subaxnimo ilaa inta xilligaasna waa ilaa xilligaa halkaasaan joognay laakiin ma aanan helin wax isgaarsiin ah just waxaan arkaynay dad meesha marmaraya xataa waxaan aaminsanahay dadka meelahaas degan oo meelaha marmaraya inay telefonba aqoon because telefon maxay ku bartaan isgaarsiin damba ma laha isgaarsiin marka waxaa kusoo gaarnay baargaal meel oo ka sokaysa baa isgaarsiin ka gaarnay oo ka helnay marka waxaan aaminsanahay in ay dhibaato badan halkaas taalo si loo gaaro halkaasna ay noqon karto in wadada la qurxiyo la hagaajiyo waa maasan tahay waxay ka soo sheekaysay Sacdiyo Cabdirasaaq Axmed arrin lagu farxo marka si loo eego sidoo kalena arrimo kale oo iyaguna murugadooda leh sida wadadoo kale ayaa iyaduna qayb ka ah leelxiis baan jeclaynaa ku noqdo oo iyaduna qurb joogtii hore kamid ahayd maadaama xilli 4 sano ay dalka ku sugan tahay ay samaysay maalgelino kala duwan oo ay u horeyso farshaxanka waa qofkii ugu horeysay oo gabarda ay yaraa baan filayaa oo deegaanada Puntland iyadoo qurbo joog xilliga hore ahayd samaysay farshaxan kala duwan oo dharkii iyo ahaa sidoo kale dhinacyadii qalabkii kala duwanaa waxaan ku leeyahay waan kugu hambaleynayaa marka ugu horeysa caqabadahaas ay ka soo sheekaystay walaasheen Sacdiyo Cabdirasaaq maadaama idinkoo dumar aad soo aragteen oo wadadaas khatarteeda leh oo burburka ku yimid oo dadka aysan ka dharagsanayn dhibaatada ay dadka ku hayso aad soo aragteen maxaad is leedahay waa lagu gudbi karaa sideesa looga qayb qaadan karaa shacabka Puntland maxaad u sheegi lahayd adigoo dabcan fikirkaaga ka dhiibanaya iyo aragtidii aad soo aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim horta caqabado badan iyo faa'iido badan labadaba waa aragnay meel la dhihi karo caqabado kaliya leedahay iyo faa'iido kaliya leedahay ma jirto Gardafu gobolka la dhaho horta maasha Allah waa gobol amoodid inuu waxa dhan u dhan tahay laakiin marka galaysid bisinka oo galaysa waxay ahayd in loo baxsho tuulada ugu soo sokaysa alxamdulillah meesha marmarka yarka looga baxshay alxamdulillah tuuladaas la rabo in loo baxsho alxamdulillah because marka ka baxdo wadada adigoo meeshaas dhibaatooyinka aad uga soo baxaysid baawurkii halis ku jira idinkiiba halis ku jira wixii dhan ba halis ku jira marka waxa moodaa in horta barwaaqadii dhan ee dhinacaas naga jirto haddana isbaaro ee buurtaas noo tahay buurtaas oo keenaysa in dadkii aysan gudbi karin oo wixii aysan ka faa'iideysan karin kuwii xagga joogana aysan dhinacan imaan karin haddii wax barasho noqoto haddii wax kale faa'iido noqoto adeeg kale aysan ka isticmaali karin marka anaga markii aan tagnay caluule markii ugu horeysay ahayd aan tagay wax badan baan ka maqlay saxafiyiinta iyo magaranaysa TV-ga iyo sawirro badan aan Facebook ku arkay waligeena waa hamigaygu ku jira inaan tago laakiin qaabkan ku tagi lahaa alxamdulillah shaqadana ay suurtagelisay marka caluule markaan tagnayna waxaan ku aragnay guriyo taariikhi iyo magaranaysa waqtiyadii horeeto oo Soomaaliya qisadeeda oo dhan ku fadhida oo magaranaysa taajir ku aaqiso laakiin dadka badankood ma xiiseeyaan dadkii magaalada deganaaba xiiseenin qof walba wuxuu leeyahay gurigaas guri burburay weeyo Itaaliyaankii baa lahaa magaranaysa Europe iyo wadanada kale hadii guryahaas oo kale ay jir lahayn lacag baa lagu garan lahaa
inaa gurigaas gasho gudihiisa lacag baa bixin lahayd meelo dalxiis bay ahaan lahayd oo loo soo dalxiis tago sawirro layskaga qaado lagu faano marka waxay ahayd horta buurtaas dhibta ugu weyn hadda waxay ahayd wixii dumarkiibaa tuulooyinka oo badan because raggiina waxay ka shaqaystaan xijiga qaarna waxay ka shaqaystaan badda maadaama annaga aan caqabadaha gabdhaha waxbarashada aan raadinaynay waxaan wareysanayna gabdhaha aabayaashin ma nool yihiin kuwo badan waxay lahaayeen aabahan xijiguu ku dhintay ama buurbu kasoo dhacay ama baddu magaranaysaa uu ku dhintay kalluumeysigaas oo ku jira marka ragga badankood waxay ka shaqaystaan hawlahaas marka dumarkii waxay ku jiraan meel kooban oo serviceyo badan uusa soo gaaraynin caafimaadka wuu yaalaa yes laakiin haddana dee caafimaadka magaalada ay ka heli karaan oo kale kama heli karaan qalabka loo geyn karo ma loo geyn karo marka xaabo tagnay waxaa aragnay horta waxaan malaynayaa tuulo ka garaash badan maana arag maxaa yeelay buurta baawurkii soo kora dib dambe uma noqdo maba hameystaa la yiri inuu ku noqdo because wuu jabi karaa waa khasaarada ka badanaysa markaas tuuladii dhan waxay wada noqotay wada garaash because baawurta si u badan yihiin alaabta ay keenayaan bas magaaladooda iska joogayaan wixiina waa dumarba tuulada u badan oo baawurti ma waxba ma u tarayso marka waxaa la rabaa gabdhahan yariiska aan wareysanayno waxbarashada waxaa ka hadlayna waxyaalaha badankood maba fahansanaba meesha aad ka hadlaysid iyo meesha maskaxdooda joogto isku mid ma ahan because waxaa moodaa inayba ku xirnayn baqaarada dhan because wadadan maadaama isbaaradii ay dhigtay dhowr hay-adoodoo ma garanaysaa isku khasba inay meesha tagaan maahane aad ba u dhib badan tahay shacabka markaan weydiinay seeba magaalooyinka boosaasi u tagtaan waxay dhaheen waxaa raacnaa saxiimadana qofkii fahansan unbaa raaci kara ma ahane annagoo kale intaan tagnay ma naqaano qaabka aan u arrange garaysan karno inaa baashaas aan helno boosaaso haddaan joogo rab inaa xaabo imaado ma garan karo qaabka aan xaabo u tegi karo waxaan waa lambare iyo dad baa isku xirxiraya moogtahay marka waxaa la rabaa caqabadaha sida loo dhaafi karo waxaa weeye horta kow inaa wadada la hagaajiyo because wadadaas ma la iska khaafin karo maxaa yeelay intaasoo barwaaqo baa wadadaa saaran hadday noqoto beerihii hadday noqoto xijigii hadday noqoto baddii hadday noqoto xoolihii daaqii wixii oo dhan wadadaasaa martaa haddii wadadaas la hagaajiyo wax badan dadka socodkooda wuu magaranaysaa isdhexgalka xataa wuu badanayaa dadkii waxay noqonayaa dad soconaya haddii wadadaas saas hadii la sameeyo haddana inaan la sameeyo doomo sharciyeysan oo ay dowladda leedahay oo la yaqaano oo tigid loo goosanayo ama lacag la baxsanayo ma garanaysaa oo caadi u shaqeyso dadka adeeg dhexda ka kala shaqeysa because ani haddaa boosaaso joogo oo aan garowa ka tegay waan jeclaan lahaa inaan xaabo tago maxaa yeelay waa xaabo waa tuulo ka yar maskaxda kusoo dejisan kartid hawo fiican leh ma garanaysaa marka wax badan aan ka helayo laakiin haddii aan haysanin servicekii doontii oo sharciyeysneed oo nolosheeda aan ku haleyn karin ma aadayo marka fursad weyn baa dhaafaysaa xaabo because qofkii maalgelin rab inuu sameeyo ma u gudbi kara xaabo ma garanaysaa wadadan intaasoo saacadood baa sii soconay oo markaan tagnay xataa tabar aan shaqada ku qabsan xataa maan haysanin laakiin was khasbayna because waqti baa nagu socday markaa sida sacdii kuu sheegtay baawuurkii baa wuxuu nooga jabay wadada dhexdeeda markaan 90% buurihii markaa soo dhammeynay buurtii baa inagoo 3 gabdhood iyo 2 wiil kaliya ah bay meel cidlaa baawuurkii nooga jabay wax isgaarsiina ma lahan because maana haysanin dhinacaasna wuu naga fogay dhinacna waa naga fogay darawalkeena subaxdii dambe markaan seexano soo toosnay baa uu naga tegay 6 subaxnimo duhurkiibu hela gaari duhurkiiba annagoo qoraxdii meelaan ka harsana la oo meel aan galna la dhagaxii nagu kulaaday cunto aana wadanin biyo aana wadanin waxba aana wadanin baawuurkii jaban yahay baawuur gudihiisa la gali karin markaas duhurkiibuu gaari soo helay duhurkiiba waa gaarigii noo imaaday markaas wiilashii wadada dhisayay baa na kaxeeyeen baargal bay markaa na geeyeen oo baawuurkii qalabkii looga soo adeegayo markaa lagu soo ceeshay aad baa u mahadsan tahay leelxiis runtii waxaad ka soo sheekaysay arrimo xambaarsan murugadooda marka loo eego dabcan waxay fariin u tahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland qurbajoog iyo daljoogba waxaan jeclahay inagoo qaybihii dambe ee barnaamijka galayna mar kale inaan ku noqdo hodan jamaal hodanay caqabado badan baa laga soo sheekeeyo aad soo marteen adiguna xilli kooban oo muddo 5 bilood hadday ugu badan tahay ba dalka joogtaa waxaad soo aragtay dhul nimcadiisa leh sidoo kale khatartiisa leh maadaama aanu sheegayno oo idinku aad ka marakacaysaan dhulkii inuu yahay halka gobolka kaliya ee Soomaaliya dhan ku filan gobolka Gardafuur dadkii aad ka soo tagtay qurbajoogta ahaa iyo kuwa dalka joogaba
maxaad dardaaran oo gudbinaysaa nimcooyinka aad aragtayna bal u sharax waxyaabo badan aan ogeen inay jiraan baa soo arkay laakiin maxaa jirto waxyaabo badan oo la isticmaali karo sida dabeesha camal baa jirto sida korontada baa ku yar tuulayaasha dhanaa soo marnay so korontada si fiican sida looga faa'iidi karo maxaa jirto daweel badan so dabeeshaas haddii la isticmaalo koronto baa laga heli karaa dadkii qurba joogta ahaa ee Sweden ku sugnaa wadamada kale iyaguna qaaradda Yurub iyo Amerikaba iyaguna ku sugnaa ee reer Puntland ee gobolka u dhashay maxaa la yiraahdaa iyagu aan soo xasuusanay dalka dib ugu laabtaan aaminsan inuu dhibaato ka jirto maxaad u sheegaysaa iyagana marka Soomaaliya imaada 5 bilood baa hadda jooga Soomaaliya marka Soomaaliya imaada way aad bay ugu adkeed inaan bulshada fahmo dadka dabeecadooda iyo wax walba sida u shaqeynaysa inaan fahmo so maalin walba waa seexin jiray maxaa rabay inaan waqtiga saas ku dhameeyo so aad bay igu adkeed inaa la qabsado so marka 5 bilood marka Puntland soo arkay iyo marka si fiican bulshada dadka dabeecadooda iyo wax walba si fiican u soo fahmay aad baa Soomaaliya ka helay so hadda Soomaaliya u soo wareegaya iyo maxaa rabaa inaa ka qayb qaato horumarka Soomaaliga horumarka Soomaaliya so maxaan rabi lahaa inaa dadka dhan oo qurba joogka inay Soomaaliya ku soo laabtaan iyo horumarkaas ka soo qayb galaan the people living abroad, it would be really good for them to come back to their country and see all the opportunities that are here. There's so many businesses, so many things that you can achieve here that are a lot easier to achieve here in Somalia than it is in your own in the country that you're staying in right now. There's so much racism in the country. There's so much oppression and so much segregation in those countries that we came from. For example, in Sweden, it's really hard for a person from a different country to get a job. And things like that you won't face here in Somalia because you are a part of a society where everyone's equal. This is your people. So try and come back, and at least if you don't wanna live here, come back and just see how much richness there is in Puntland. hodan Jamaal Soomane waa kaga mahad celinayaa sida aad ula hadashay asxaabtaada qurba joogta ahayd dabcan saacadiyaan siinaya marka ugu horeysa waxaan ku soo gabagabanayaa leelxiis dardaarankooda ugu dambeeya ku aadan wadadaas burbursan ee gobolka Gaardafo lafa gorayo aad marteen waqti dabcan kaga dhumay oo khatarteeda leh iyo sidoo kale maadaama ay hooyooyin ay ku raaci karaan oo ay jiraan dad maata ah oo iyaguna dhibaatadooda qaba oo gobolkaas ku sugan bal daarankiin ugu dambeeyay ee dadka reer Puntland qurba joog iyo dal joogba bal anaga ku hormaraya Saacadiya Cabdirsaaq waxaan jeclahay in oo aan Soomaaliya oo dhan khaasatan reer Puntland ama dawlad ha ahaato ama shacab ha ahaato ama yacni arday aan shaqaysan ha ahaato qof walba waxa uu awoodi karo in uu ku bixiyo wadadaas si loo helo wada la marin karo wax walba si ay u helaan hooyooyinka halkaas ku go'doonsan si ay u helaan caafimaad si ay u helaan waxbarasho taam ah oo dhameystiran si ay u helaan adeeg ku filan iyaga oo ay ku noolaan karaan si ay u helaan ganacsi yacni waxa jira hooyooyin soo saara nolosha ilmahooda soo saara baa jira si hooyooyinkaas u helaan ganacsi oo kale waxaan jeclaan lahaa in aan يعني ujeediyo dardaaran bulshooyinka reer Puntland in ay isku taxalujiyaan wadada sidii loo hagaajin lahaa waa markeeda koowaad ma hadii wadada la hagaajiyo wax badan baa hagaagsamaya waxaan kale oo yani jeclaan lahaa in aan dhinaca faa'iidadana aan ka sheego yani waxa dhici karta hadii wadada la hagaajiyo in beeriyo kala la fasho sida la ii sheegay waxa la dhaalintii baa ka baxda mooski baa ka baxa waxaan u haystay mooska koonfur kaliya inuu ka baxo ma u haysan Puntland inuu ka baxo yani baygi baa ka baxa qudaartii intii kala dhan baa ka baxda haddana badii dhan baa ku teedsan waxa ku teedsan badii oo laba nooc ah baa ku teedsan yani waa wadan oo khayraad oo Soomaaliya laga heli karo waa gobol oo isugu tagtay waxaan kale oo aan ku dardaarmayaa waxbarashada gabdhaha
يعني caluula hadda oo kale wallahi aad ba uga naxay yani waxa sii sacdi hadii maanta xoogaa haysan lahayd miiskaba u saari lahaa waxaan dhiilaa ku sameeysta iskuulka aan tagnay gabdhaha fadhiyay waxa fadhiyay 2 wiil waa fasal dhan iyo 4 gabdhood mar qaybtood waxa fadhiyay 2 gabdhood iyo 2 wiil waa fasal dhan waxa yani ay fadhiyaan fasal oo saqaf lahayn maalin baa roob da'ay maalinta roobka da iskuul ma la aadin wuu qoyay يعني waxaas ku waxaan dhigi karaa macquul ma noqon karto yani dad nool baan nahay haddana waxaan nahay gobol Puntland ah oo la dhihi karo waa Soomaaliya marka loo eego waa gobolka ugu nabadda badan waa gobolka ugu wax soo saarka badan waa gobolka ugu nabadda badan ma noqon karto in oo meel ka mid ah Puntland ee ardada saqaf la'aan ku dhigtaan suurtagal ma noqon karto yani waxaas dhigi karaa waxa keeni kara wadada because cidba ma oga isgaarsiinta oo kale isgaarsiinteedu waa daciif Facebook WhatsApp Fiber waxaas oo iska ilo waxaan ku dardaarmayaa waxbarashada dhankeeda in la xoojiyo sida ubadka soo baxa ay u helaan waxbarasho fiican ay u helaan ayna ka qayb qaataan siyaasadda ayna ka qayb qaataan bulshada intooda kale because bulshada gobolada kale degan oo Puntland degan waxay yani leeyihiin ba ayagana xaq u leeyihiin waa in la ogaado yani waxbarashada kow wadadaas hadda shaqadeeda waa la wadaa in la ugu dhiirado in wadadaas sax laga dhigo kadibna waxbarashada gabdhaha si fiican iyo wiilashaba si fiican loo ogaado oo iskuulka laga tiiriyo iskuulka su'aalaha ardada weydiinayna waxa ka mid ahayd macallinkaagu fasalka inta badan ma ka maqan yahay ardada kuma sheegayaan dhibka because iskuulkooda hadda iskuulka gabdhaha joogay waxaan weydiinayna ma jeceshahay iskuulkaaga wax ma ku necbtay iskuulka ma iskuulkayga waxba kuma necbi okay saqafkan iskuulkaaga ma ku jeceshahay oo ka maqan ma garanayso hadii waxay just waxa niyadeeda ka dhadhacsan iskuulkan waa jecesha waxba ka barataa yani ama saqaf laan ahaado albaab laan ahaado dabcan waxa muuqata inaysan jirin waxay ku doorsadaan maadaama aysan wax kale u bedelaan aysan iskuul yani waa ka naxaysaa waxaan jeclahay in aan dadka maal qabeenta ah iyo dadka dawladda haya kulli waxa ka saaran xaq ba ka saaran haddana su'aal aakhira abaata la weel isweydiinaya waxa soo dhan yani waxa fiican in oo xaqa ilaahayna la iska rido oo qof walba waajibaadku ilaahay saaray oo asagana isa saaray inuu rito yani waxa kale oo fiican in la isku naxariisto because dad Soomaaliya baan nahay dad ehel baan nahay dad wada degan baan nahay dad isku dhaqanana isku diin baan nahay xagga insaaniyadnimada ma waayin waan aaminsanahay in aysan waayin wax ay ku dadaan laakiin waxa meeshii ka maqan ninna xaq iskama rogayo ninna insaaniyad iyo bini'aadantinimo kuma jirto waxaan jeclaan lahaa in oo ay fahmaan hadalka aan ku hadlayo wallahi bil qalbi bay iga tahay aad baa u mahadsan tahay runtii waa hadal qiiro leh maadaama laga soo sheekeeyey waxbarashadu heerka ay ka gaarsiisan tahay gobolkaas oo dabcan leh nimcooyin u gaar oo aysan gobolada Puntland lahayn dabcan daawadayaasha Puntland TV gaar ahaan dhinaca dawladda iyo dhinaca shacabkaba waxaan rajaynaynaa inay meel ka taabato maadaama qof walba u ubad dhalay ay dhigtaan waxbarasho guri qurux badanna ay wax ku bartaan dabcan waxaan u soo noqonayaa Leila Cali Cabdullaahi Leila Xiis Leila adiga dhinacaaga aragtidaada dardaaranka ku aadan dhinaca wadada burbursan Gardafu iyo sidoo kale faa'iidada khayraadka sidii looga faa'iideysan lahaa bal maxaad adiguna soo jeedinaysaa gabagabada bismillaahir rahmaanir rahiim horta aniga wax igu muhiimsan horta inaan la dardaarmo kooda hore reer Gardafu waxaan rabaa inaan la hadlo reer Gardafu qurba joogtooda iyo dal joogtoodaba waxa haysataan dhul aad iyo aad u barwaaqaysan oo taajir ah dhinac kasta hadee noqoto qiso hadee noqoto dhul hadee noqoto bad hadee noqoto xoolo waxa la rabaa ani markii ugu horeysay wadada aan marayay su'aashii ugu horeysay maskaxdayda ku soo noqonayso waxay ahayd meeda qurba joogti Gardafu ma garanaysaa because inta hadda aniga ah Soomaaliya aan jooga 4 sano gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug iyo Kansool iyo Kanay mar walba waxa arkaa qurba joogtoodii oo ololeynaysa ama iskuul agoon ha dhisaan ama dhaqaatiir ha dhisaan ama waxyaalo kale ha dhisaan waxa la rabaa dhalinyarada reer Gardafu dalka kuwa jooga iyo kuwa dibadda joogaba inay isla shaqeeyaan oo wadanka qaybtiisa sida loo horumarin lahaa inay ka shaqeeyaan horta idinka markaa wax qabsataan oo idinkii isla shaqeysaan oo isla dadaashaan markaa dadkii kale ayagana wixii way garan karaan oo waan la caawin karaa laakiin muhiimaddu waxa weeye inaa horta shaqadiina qaybta inaa ka soo baxdaan oo idinka dadka abaabushaan oo kicisaan anaga dhalinyaradeen hadda xiliyadan joogta anaga qabiil kuma shaqeeyno
qof walbaba Soomaali ahaanba ku shaqeynaa inaad naga faa'iideysataan dhalinyaradeena kuwa ardayda jaamacadda dhigta oo la wax badan baa la sameyn karaa haddii intaas iskuul walba la tago iskuul walba $1 ardayga laga soo qaado wax badan baa lagu sameyn karaa waxa la rabaa in idinka isla shaqeysaan kuwa dibadda joogan lacag soo diraan kuwa inta joogan lacagta shaqo galiyaan midda labaad waxaan rabaa inaan la dardaarmo dowladda waxa ka masha Allah way dadaaleen hawlo badan way qabteen waxyaalo badan baa ka maqan ana ma isdhahayo in ayaga naga xoog yar yihiin ama is shaqeysanaynin laakiin see u shaqeysanaysa hadiiba wadada ay u marleed shaqadaada ay ka xun tahay marka waxa la rabaa qofku markuu shaqo galay inuu qalabkiisa haysto hadaa qalabkii idinka ayna siinin ayaga wax dib bay noqonaysaa inuu qofka wax u qabto in ayagana wax qabsadaan midda kale waxa rabnaa la dardaarmo dumarka reer Gaardafo dumarku ogtiin xiliyadan la joogo dumarka badankood hawlaha hoose ku sii fiican waxa la rabaa dadka reer Gaardafo oo magaalada jooga Garowe Gaalkacyo Boosaaso meelba jooga idinka la rabaa inaad ka fikirtaan gabdhiina yar yar waxbarashadooda guurkooda meesha ay ku sugnaan doonaan future-kooda wixii adiga soo martay waa soo martay wada la'aan haday ku haysay haday wax kale ku haysay laakiin waxa la rabaa dhibtii adiga soo martay ina gabadhaada yarta kala dagaalantid inay isku dhicin oo aad ka gudbisid adiga marka waxa la rabaa ina ama haday dawlad noqonayso hadaa ku buuqaysid ama ay noqonayso duqa magaalada ama ay noqonayso gudoomiyaha gobolka ama ay baldaajaha noqonayso ina dumarkiin ina hadashaan oo wixii dhibaatani haysat ina dhahdaan anaga dhibtaanana haysataa maadaama idinka kaligiin qaarkood ina ka bixi karin ina ragiini ama odayaashiini ina ku dhahdaan niman yahow sida noo dhaama ayaga in la mas'uul baan iga saaran mogtahay marka hada idinka noloshiini caafimaadkiini waxbarashadiini intii asaasiga diin helin de idinka waas dayacaysaan marka hadii idinkan laga aamuso ma aha ina idinka aamustaan dumarku waligood waa lagu yaqaan ololay mashxaro marka kale waa mashxaradaan dhibtiinana ka hadla hawlihiina soo bandhiga dhaha anaga dumar hadaan nahnay sidaana loo dhaamo wadadaasay anaga marnay and I think anagiyo isku maleyn inaan nahnay dad adag ba qaar ooyi qaar suuxay qaar mataga baan dhaxeen kulligan oo dhan ma garanaysaa marka idinkii saxaba marka hadana baddaas idinka uur leh ba saxiimad yiriisa noloshiina ku haleenaysaan marka waxa la rabaa insha Allah inaad dumarkiina dadaashaan dhalinyarada dadaalaan waxaan waa Puntland aan dakhligaana iyo adduunyadan aan ka faa'iideysano gobol walba wuxuu haystaa barwaaqo iyo wax gooni uu ku yahay oo caan ku yahay hala kala faa'iideysto iyo cibta Gaardafo hala geeyo xijiga Garowe hala keeno waxa weyn la kala bedeshto laakiin hadii kala maanta dhan iska soo taagno gobol baa anaga kaligay isku shaqeynay waa dhaafay xilligii qof walba gobolkiisa u hormarinay waa ina u gudubtay walaalka gobolkiisana u gudubtay aad baad u mahadsan tahay leelxiis dabcan dardaarankaaga saliimka ah waa kaaga mahadcelinayna waxaan filayaa in ay dad badan ay sidoo kale ay ku cibra qaadan doonaan xilli qabiil lama joogo waxa la joogaa xilli qaran loo isaago waxa la joogaa xilli dabcan la isku asxaanfalo oo laga qayb qaato horumarada kala duwan ee dalka ka jira iyo dhibaatooyinka dalka ka jira sidii loo gudbi lahaaba guud ahaan daawadayaal waa naga intaa barnaamijkii qoyska iyo arrimaha haweenka oo aan toddobaadkan ku eegaynay hablahan iyagu isugu jira qurba joogta iyo dal joogta oo safar ku tagay gobolka Gaardafo dabcan waxay ku soo arkeen nooga warbixiyay dhinaca dhibaatooyinka iyo dhinaca faa'iidooyinka badan ee gobolkaasi uu leeyahay gabdhahaasi waxa kamid ahaa dabcan hodan Jamaal Soomane oo iyadoo kamid ah qurba joogta ee dalka Sweden iyadoo inooga timid dabcan dal joogta Saadiyo Cabdisaaq Axmed ayaa iyadoo kamid ahayd Leila Cali Cabdullaahi leelxiis ayaa iyadoo kamid ahayd oo farshaxaniinta Puntland kamid ah oo qurba joog hor ahayd waad ku mahadsantihiin dabcan barnaamijka sida wanaagsan aad iga qayb qaateen iyo sida aad ugu soo gudbiseen dadkii reer Puntland iyo dadkii Soomaaliyeed ee nadaawanayayba aragtidiina iyo dhibaatooyinka iyo waxaad ku soo aragteen aad baad u mahadsantihiin barnaamijkiisa kale intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh